Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkeena Sun Life and Peace Media. waxaa macquul ah markaan lagu xantaa in Soomaalidu ay ganacsi waxba ka aqoonin, balse waa dad iyagu ganacsiga diyaar u ah inay shaqaystaan, balse waxaa ka maqan business plan oo ah xirfadaha ganacsiga ama qorshooyinka ganacsiga. isagoo aan ka haysan wax xirfad ah ama la talin buuxda aan ka helin asxaabta kale ee ka agdhoway ganacsiga kaga horeysay, balse maanta waxaan qodobkeena ama mawduuceena diiradda ku saari doonaa sidee u horumarin kartaa ganacsigaaga. haddaba waxaan ku siinayaa ilaa iyo 10 talo oo aad ku gaari karto yoolka ama hadafka aad ka leedahay ganacsigaaga. ganacsiga Soomaaliya waxa uu leeyahay fursado badan oo horumar leh, waase haddii lagu kabo aqoon qoraalkan iyo sidoo kale muuqaalkan waxaan ugu talagalay in ganacsatadu ay ka faa'iidaystaan, waayo waxay noqonaysaa cashir ganacsigaagana uu muddo dheer ku shaqayn doono. ogow weli fursad baad haysataa in aad wax ku horumarsato. haddaba waxaan halkan kugu soo gudbinayaa in uu qaato ganacsi kasta 10 talaabo ee aan ku sheegi doono waxay kaa caawin doontaa in aad cilmiyeyso ganacsigaaga. talaabada koowaad, fikrad. ganacsi kasta waxa uu ka bilowdaa aragti ama fikrad. meel kasta oo aad ka heshaba ganacsiga waxa uu ku bilowdaa fikrad kugu dhalata. talaabada labaad, samee cilmi baaris. haddii ay fikrad wanaagsan kugu soo dhacdo waa in aad ku dheeli tirtaa xaqiiqda fikradaada ganacsi. waa inay xalinayso dhibaato jirta ama ay daboolayso baahi jirta ama ay keenayso waxa uu suuqa doonayo. si aad u ogaato baahidaasi waxaad samayn kartaa cilmi baaris, sida kulan aad la yeelato dad kooban oo khubaro ah ama inaad suuqa ku tijaabiso si kooban. intaad daraasada samaynayso waa inaad isweydiiso su'aalaha baahi ma loo qabaa badeecadaada ama adeegan. yaa u baahan? ma jiraan shirkado kale oo badeecadani adeegan bixiya? waa sida heerka tartanka halkuu ganacsigu ka geli doono suuqa. talaabada saddexaad, waa inaad qorshe samayso si aad ganacsigaagu uga dhigto mid run ah. qorshe qoran wuxuu qasab yahay marka aad maalgelin ka doonayso dad ama bangi wax maalgeliya. xitaa haddii aad filinayn maalgelin dhaqaale, haddana qorshe ganacsi oo aad samaysato wuxuu kaa caawin doonaa inay ku caddaadaan waxa aad rajaynayso inaad ku guulaysato iyo sida aad u qorsheynayso inaad hadafkaaga ku gaarto. talaabada afraad, qorshaha maaliyadda ganacsiga. qasab ma ahan in ganacsiga aad bilaabayso uu u baahan yahay lacag badan, laakiin waa muhiim maalgelin bilowa intay doonaan ha ahaatee. meelaha aad dhaqaalaha ka heli karto waxaa ka mid ah saamileyda ama mid ka mid ah bangiyada dalka ka jira. ganacsigaaga wuxuu noqon karaa mid aad keligaa leedahay, mid dad tiro kula leeyihiin, ama shirkad saamileya. qaabka aad doorato wuxuu saameyn ku yeelan doonaa magaca, deymaha lagu leeyahay ganacsiga iyo qaabka aad canshuuraha u bixiso. waxaa suurtagal ah in aad marka hore doorato qaab dhismeed adigoo dib u qiimeynaya oo bedelaya qaab dhismeedka marka uu ganacsigaagu kobco isla markaana ay baahidu timaado. talaabada lixaad, xulo oo diiwaangeli magaca ganacsigaaga. magac bixinta ganacsigaaga waxay kaalin muhiim ah ka ciyaari doontaa qayb kasta oo ka mid ah ganacsigaaga. adigoo arrintan maanka ku haya, ka fikir oo xulo magaca ku habboon ganacsigaaga. Soomaalidu arrintan tixgelin weyn ma siiso, waana waxa caadi ah in aad aragto magacyo aan munaasab ku ahayn ganacsiga loo bixiyey. marka aad magaca xulato ku bedel in aad diiwaangeliso. inkastoo dalkeenu aysan awood lahayn, haddana ilaaliya. sidoo kale diiwaangeli barta internetka ah ee magacaaga. talaabada toddobaad, ogolaanshaha iyo rukhsadaha. waa in aad qaadato ogolaanshaha iyo rukhsadaha ganacsiga aad ka shaqaynayso, taasoo ku xiran hadba nooca ganacsi aad ka shaqaynayso. waxaadna ogolaanshaha iyo rukhsadahaas ka heli kartaa rugaha ganacsi iyo warshadaha, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dowladda hoose. talaabada siddeedaad, xarunta ganacsigaaga ama xarunta ganacsiga. waa muhiim inaad go'aan ka gaarto xarunta ganacsi ee aad ku shaqayn doonto. waa in aad ka fikirtaa goobta, qalabka iyo guud ahaan qaabka shaqo, iyadoo arrimahaasna ay ku xirnaan doonaan hadba ganacsiga aad ka shaqaynayso. talaabada sagaalaad, qaab xisaabeedka. ganacsigu ma shaqayn karo nidaam la'aan. mid ka mid ah nidaamyada ugu muhiimsan ee ganacsiga waa nidaamka xisaabta maaliyadeed ee shirkadaha. nidaamka xisaabta wuxuu muhiim u yahay inaad samayso oo aad maamusho miisaaniyadda, aad dejiso qiimayaal, aad ganacsi la samayso shirkado kale ama aad canshuur ku bixiso. qasab ma aha in aad isticmaasho nidaam xisaabeed oo ku shaqeeya kombiyuutarka ee waxaad adeegsan kartaa qaab ugu habboon ee hadba la jaanqaadi kara awoodda shirkadaha. waxaana ugu yar buuq diiwaangelin, waxaana kusoo xiga barnaamijka Excel ama wixii la mid ah. talaabada 10aad, caanbixin ganacsigaaga. marka ganacsigaagu uu shaqo bilaabo waxaad u baahan tahay inaad caan bixiso. waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa dadka ku dhiirgelinaya inay badeecadaada ama adeegaaga ay iibsadaan. waa inaad samaysaa xayeysiin adigoo ka fikira qaabka ugu habboon ee aad dadka ku gaari kartid. marka aad xayeysiinta
samayso waa in aad ka fikirtaa fariinta aad dadweynaha gaarsiinayso iyo warbaahinta aad u marinaysid. haddaba dhegayste, waad ku mahadsan tahay daawadashada iyo la socoshada barteena YouTube-ka. haddii aad doonayso ganacsiga inaad heer ka gaarto, raac 10 tallaabo aan ku soo sheegay. mahadsanid.